شيخ عبد الرحمن. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلي الشيخ محمد عبد أمل حفظه الله وشيخنا maalintii jaamacadda uu ka soo noqday ilaa iyo xilligan dacwo ku mashquulsanaa. runtii waxyaabaha ugu weyn ee ilaahay uu ku guuleeyey waxaa ka mid ah towsicinta masjidka weyn ee jaamica masjid abubakar asidiiq iyo masjidka dacwadiisa fadhiisiintiisa inuu ilaahay sabab uga dhigay, iyo haddee dacwadiiyuu ku lahaa gacan aad iyo aad u dheer. anigu waa sheekhaygii, waa wada shaqaynay. naa'ib baan u ahaa muddo ka badan 17 sano. waalidna waan u ahay, jazaahu llahu khayran. intaabo sheekhu waxaan ku naqaanay jazaahu llahu khayran dacwo jacayl iyo ikhlaas iyo ummadda inuu anfacay. dadkana waxa ugu nafci badan oo ugu wanaagsan anfacuhum linnaasi. ilaahay waxaan uga baryaynaa khayrkaas ilaahay ugu furfuray oo miftaaxul khayr uu noqday, miqlaaqu sharna uu noqday, ilaahay inuu u kamilo, caafimaadkiisana ilaahay u taam yeelo, waraho fiicanna alle subxaanahu wa tacaala uu hortiisa iyo gadaashiisaba inuu dhigo. kollay markhaati waxaan ka nahay antum shuhadaa'u llahi fi lard, in ilaahay lisaana sidqin fi laakhiriina ilaahay inuu u yeelay, oo haddee taana marag madoonto weeyaan. wuxuu naga mudan yahay tixgelin iyo duco iyo wada shaqayn. وجزاه الله خيرا وبارك الله فيه وفي أهله وماله وأولاده وفي عافيته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.